قلت هذا شيء walaalayaal waxa waaye nin walba calankiis ha iimaansado wax Soomaali lama jirto waa la kala go'ay Itoobiya waa go'day anaguna waa go'nay alxamdulillah su'aalaha Google la weydiinay waxa ugu horeeyay su'aashu ugu horeysay waxay lahayd ceelbuuriya iska leh abgaal maxaa haayo niyo adi dadkan kala qabo runta noo sheeg duduble ceelbuur madaga mursada maxay rabaan duduble iyo mursada kala qabo ceelbuuriya leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقارت مقاهى جمدنا ملك استوى جوكتان سيكستو مقالكي مقالكي جديد سو قاريبا هل كده قد داونيسان واتشانل كشاعر شيكية وانا ولكن شاعر شيكية كسو دوادا برنامج كادر انت بالشدو انا ديكو قهي قلت هذا شيء واتا صاحبي علمتنا برنامج كي وقود قليل فضلا سبسكرايب صار الشانل كي سيدو كلا لايك لدعم مقال كان سيو قارت صاحب بدا واتا adoo saaxiibayaal maalmihii u dambeeyay waxa mar weyn ka taagnaay hees uu soo saaray ilka caasi oo lagu amaanay qabiilada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadaba heestaasi qaybtii koowaad maran baa ka dhashay qaybtii labaad ayaa soo baxday hadana oo qabiilo badan oo Soomaaliyeed lagu soo daray hadana murankii ugu weynaa ayaa ka taagan shirkadda Google oo ah meesha ay ku soo ururto xogaha la soo geliyo baraha bulshada oo dhan diyaanleed Facebook diyaanleed YouTube adigu shirkadaha kala duwan applicationada ama adiga shirkadaha kala duwan oo social media oo dhan shirkadda ay toos u imaadaan ama ay ku xiran yihiin Google ayaa markan qaatir waxay ka taagan tahay Soomaalida waxaana la weydiinayaa fucking questions ama su'aalo runtii ay uusan ka jawaabi karin Google waxa lagu yaqaan su'aal la weydiiyo oo qeexo leeyahay waxaas hadaba Soomaalida markay soo baxday ilka caasi maxay Google weydiiyeen su'aalaha Google la weydiinay waxa ugu horeeyay su'aashu ugu horeysay waxay lahayd ceelbuuriya iska leh abgaal maxaa haayo niyo adi dadkan kala qabo runta noo sheeg duduble ceelbuur madaga mursada maxay rabaan duduble iyo mursada kala qabo ceelbuuriya leh war noo sheeg ceelbuuriya leh ceelbuur duduble ma leh ceelbuur mursada ma leh adi ceelbuuriya dago adi su'aalahaas oo dhan baa Google la weydiinay shirkadii Google baa xitaa yaabtay oo saacadii u dambeeyay waxa soo su'aalo ah ay sida aga jawaabtay aqooway aniga raba inaan mawduucaas ka dhaqaaqin sababtoo mawduuca uu soo noqday ayaan dhawaytay ahayd markii la lahaa Muqdisho yaa iska leh Hebel baa iska leh kan hadaba adiga daawanaan ku weydiiyay ceelbuur yaa iska leh ku leeyahay laakiin ceelbuur yaa degan ahaan yaa u badan marka waa ka gudbiyaa su'aashaas halkaas dadka u deynaya daawanaya dabcan waxaan ku ogaa doonaa commentiyada inta badan ka ogaa doonaa heestii ilka caasi uu soo saaray horta waa Soomaaliis sida u jeedinba Soomaalinimada ku qurux badnaa dabcan inay Soomaalinimadu joogto waxay u socowaysan waxa kamid ah muuqaalkan xiriir daaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan taas ka gudbo waxaan jeclahay inaan idin shawaariyo qaaliga ah walaalayaal waxa waaye nin walba calankiis ha iimaansado wax Soomaali lama jirto waa la kala go'ay Itoobiya waa go'day anaguna waa go'nay alxamdulillah calankeenana qorqor waa isku day in uu qufsiisto laakiin se sanadka maya haga ayd uma hayno laakiin adana halna idin qeyrqeyliyo daar caliso loo ilka ka dhamaadeen meelaha ka dhaho kaasna waxa uu sheegay daar caliso insha Allah calankeena madhow iyo heesti loogu talagalay aad ku macaaneed dhulkeena ku wada jirto kulli yaa alxamdulillah calankaas kor loo qaado daay calisow ka dhamaado calankeena qorqor soo kale ilka caasi sheekadiisu waxay noqotay arintii juuxo kala qabsatay waa xaalad halis oo gacmaha la galay waana ka bixis male hadda waxay maraysaaba maxaad nagu heesi weeyay taagan tahay waa noo soo heystay maxaa magaalada qabiil Hebel u siisay iyo anaga lahayn iyo anaga iska leh baa xaaladu maraysaa juuxa hadda koor wuxuu sameeyay asigii wiilkiisa dameer soo wada raaceen magaalada soo aadeen ayagoo rabay in dameerka magaalada ay soo adeegtaan ku soo gataan markaas baa waxa ku dhacday ninka odaga dameerkii buu wiilkiisa inta saar wuxuu si wiilkaaga u naxo adigu lugay dadkii oo dhan saas soo fiirshay magaalada waxa la yiri war juuxa maxaa ka qaldan warna ku doqosana wiilkiisa yaraayo kor saar asigii odayaha lugayaha wuxuu xaasidsan juuxa wuxuu deg
nijaas weelkeeda tahay dabow cunugiidu daji wuxuu saa asigaa kora cunugiidu lugay cunugaas dameerkii ku ag socday dad kale haddana markuu ag mara war odagu xaasisanaa qaansiirka waa max odayga ay saaran dameerka cunugiisii oo lugaysiyaha oo asaga dameerkii saaray waa yaabay ninka juuxaha dameerkii ka degay wuxuu sameeyay labadiinaba aan wada korno labadooda dameerka wada kora dadkii haddana soo fiirshay xalli war kuwan xaasisana war xoolaha ximaarkaasay u galayaan waa max war ayaga dameerka daran war dadku xaasisan dameer laba qofood ku saaray ilaa juuxa markii dambe isku dayno dameerka qaad marka horta Soomaali waxa waaye wada taasa wada macnaha waxa waaye qeyr Allahaasi waxa waaye haddaad mar aduu faraha la gasho saa faraha ga baxdo adag tahay habba dhinac lagu jeeday la isku dayaa marka ilkaas xaaladdu waa ku adag tahay aad iyo aad baan idin salaamana lafti geela baddo ugaaskii reerkan soo qabanay boqorada reerkan waan la joognaa anoo reer kale qolofkoodana waan joogay aad iyo aad baan idin salaamay gunto iska hadashay aad iyo aad baan idin salaamana laakiin fanaaniinta Soomaaliya waxaan dhihi lahay marka runtu isku sheego u laabta qarannimadiin iska daaya qabiilkan iyo qabiil hebel amaanaynaa iska iloow war ilaahay baan ku dhaartay inaan Soomaali aanan qanci karin haddaad tiraadaan boqol jeer baan qabiil walba mid baan u amaanaynaa hebel habarteeda kat waxa sharaf iyo karaamo iyo qurux lagu leeyahay waxay tahay waa qarannimada halkaas hadii laga soo dago ceeb ba imaanays faraha dhiiqa caadi ahna wasaqaysan la galaysa dacduna sidiisaba waxay dhaantaa ninka u leeyahay haddaa ul inta qaadato aad biyo wasaqaysan oo daca inta u timaado aala dhacdo dabcan hadda adeeg ku haleynaysa okay fanaaniinteena Soomaaliyeed intii dhibata Allah naxariistay iyo intii noolba waxa ayeen kuwa kaalin weyn ka qaata markii wadankooda ama qarannimadooda xaalad adag ku jirto oo heeso wadaniga soo saar sanadka 2021 iska dhaafay xitaa 2020 hal iyo laba amalina waa fanaan hees wadaniga qaada hal iyo laba ka jirta bas inta kale mid walbo isaga istirtiray isaga isku mashquulsan jacayl iyo waxaan loo joogin iyo fidq iyo raad waxaan ahay waa soo saari diiday fanaaniintii waxay noqdeen kuwa ku soo kooma meesha ay joogaan markaas magaaladaas ay joogaan iyo arooskaas oo looga yeero bas wadaninimo midna dhamaataba ka kac macnaha asheegi fanaankii xitaa hees wadani soo qaado Soomaalida laftirkooda faraqa guud fanaankii hees wadani soo qaado meeshii la taageeri lahaay dawladda garab gali lahayd loo sameey lahaay male waxa jirta kooxo wadaniyiin oo kooxo urur wadani ah ma dhaqaalaha ku yar ma wala taageero ma aqaan hal qof waddo ka soo bax maanta fadhiga lagu istaago ninkan caan waa leeyahay aqoonhay ma jirto marka waxaad moodaa inaan ka soo tagno Soomaalinimadii oo aan hoos u daadegayno taasina lagu kulaatay lagu ku wala maraa ma aha albaxnimo iska daay waa dareemi kartiin dhibaatada uu qabiilku leeyahay wax yarba adigoo dhaqaaqinba waa kana waa hal leeysa soo baxay muran maanta barnaamijyada maxaa tahay reerkayga laga soo tagay reerkayga waa kan waa reer istubudo marka dhibkaas oo dhan afka ku geysadaba marka waxaan dhihi lahaa Soomaalidina waxa waxa iska tahay qabiilka waxa mid ah oo needaayni aad ma soo daasho muuqaalka shaaciga la saayo muqaddam